ku dhawaad 12 xubnood oo ka tirsanaa golihii hore ee wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa ay si rasmi ah u cadeeyeen in ay iska casileen xilkii ay ka hayeen dowlad goboleedka Hirshabelle iyaga oo u sababeeyay wada shaqeyn la'aan kaga timid xagga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay wasiirada is casilay sheegeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble in uu madaxtooye ka dhigtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay ku dareen in ay u soo dhaarteen deegaanada Hirshabelle waa kuwan wasiirada qaarkood oo ka warbixinaya iscasilaadii iyo waxyaabihii ay isku casileen haddaan ahay wasiirkii hore kalluumaysiga kheyraadka badda maadaama madaxweynihii magacaabay oo aan riboorka siin lahaa oo aan talada ka qaadan lahaa oo wixii la soo kulmo aan u keeni lahaa aan ila shaqayn waayo una arkay in uusan ku faraxsanayn shaqada aan u hayo bulshada reer Hirshabelle iyo dowlad goboleedka Hirshabelle sidaas ayaan isku casilay inuu madaxtooye ka sameystay Hiiraan iyo Muqdisho laakiin ma aha Jowhar iyo Hiiraan ahayd ma ahayn inuu Muqdisho ka dhigto madaxtooye waxaan ahay wasiir ku xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka ahna xildhibaanad ka soo jeeda Hirshabelle waxyaalaha maanta aan isku casilayo waxa way madaxweynaha iyo shaqadii wasaaradda nala wadila waxaan maanta isku casilayeen maamul xumo ma qaadan karo Hirshabelle oo soo dhaartay 2 jeer wasiiran ku dhaartay ku xigeen waxaan u dhaartay xildhibaan ma qaadan karo marka inaan been Hirshabelle shacabkayga ugu dhaarto waxaan rabaa marka iscasilaadda maanta xildhibaanada hortooda aan ka sheegayo waa wax sax ah wax iga qaldan ma aha wax maanta aan masiirkaygii iyo munaasibkaygii maanta aan mari waayay baan isku casilayaa Hirshabelle dhaawac gaarayna raali kama noqon karo madaxda Hirshabelle oo kuraasta noogu fadhisana shalay annaga keenay maantana kii shaqadiisa qabsan waayo kursiga waan ka ridaynaa wasaaradda aan ka shaqeynay wasiirkan waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxaan la hilmaamay waxay ahayd waa wasaaradda ku dhaqaalaha badan wasaaradda Hirshabelle dhaqaalahooduna jaabka Cali Cabdullaahi ku dhacay saasaan la hilmaamay raalliga ah iscasilay laga bilaabo waxaan halkaan ka cadeynayaa anigoo ah wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabelle inaan maanta iska casilay wasiir ku-xigeennimadii sidaas daraadeed waxaa dhacday inuu qodobo dastuuri ku tuntay oo ka mid yihiin magacaabistan farada badan iyo xilka qaadistan farada badan oo golaha wasiirada ay waxba ka ogeyn golaha baarlamaanka ay waxba ka ogeyn cid uu tala ka qaatan ay jirin sidaas daraadeed waxaan idin sheegayaa laga bilaabo maanta aniga waxaan ahay xildhibaan wasiirnimadii halkaas aan uga tago bilaad tamarta kheyraadka biyaha iyo macdanta waxa waaye waxaan iska casilayaa xilkayga sidii hore u sheegay asxaabtayda shaqo xumo iyo la shaqeyn la'aan madaxweynaha sababteed iyo masiirka qofka Hirshabelle daraadeed ayaan xilkayga iska casilaa maadaama aan wax ku soo kordhinayn waxaan gartay inaan iska casil xilkaas madaxweynahana shaqo xumada keenayna ummadda laga qabto intaasaan isku casilay waa ummadda Soomaaliyeed ummadda Hirshabelle oo sheegayaan inaan iska casilay xilkaas sababaha iska casilay wax kale maaha maadaama madaxdayna ugu sareysay Hirshabelle madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cusuble oo xilkiisii maartay dowladnimo gudan waayay maanta cadeynaya anoo magacayga la yiraahdo Cabdi Qaadir Cadow ahna wasiir ku-xigeenka boostada isgaarsiinta inaan iska casilay xilkii aanu hay Hirshabelle anigoo ah xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur ex ama wasiir dowlo hore howlaha guud iyo guryeynta waxaan halkaan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayay dowlad goboleedka Hirshabelle halkaasna waxaan ka cadeeyay xilkii wasiirnimo oo dowlad goboleedka Hirshabelle u hayay inaan maanta iska casilay waxaan halkaan ku cadeynayaa anoo ah xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ex wasiir ku-xigeenkii wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga inaan iscasilay inta badan wasiirada ayaa sheegay waxaan ku darayaa 2 qodob iscasilaadeennu annagu golaha baarlamaanka waa ku dhaaranay kii golaha wasiirada waa ku dhaaranay bacdama golaha wasiirada aan ku dambownay dambi dhaaf inaan helno asal u ah inaan u mahad celino dadkii gartay
wixii ay u dhaarteen oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda ay ugu dhaarteen mar haddii ay ka suurageli waayeen hoggaankii ugu sarreeyey mataqaanaa dowlad goboleedka hirshabelle in aysan ummadooda been u sheegin iska casil xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay mooshinno ay ka wadeen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi cosoble iyaga oo sheegay in caasimadii uu ku nagaan la'yahay oo caasimad uu ka dhigtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa, warbaahinta Jubba Shabeelle News, magaalada Jowhar.